Maxamed waa 15 jir ku nool magaalada Gaalkacyo. Dan iyo duruuf daris la noqday ayaa ku sababay inuu ka shaqeeyo xirfadda caseeynimada si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa walow mas'uuliyaddaas oo idil uusan qaadi karin. Halkani waxaa inooga bilaaban doonaa sheekada Maxamed oo ah caseeyaha da'da yar isla mar ahaantaasna udub dhexaad u ah nolosha qoyskiisa. Magacaaga? محمد دون قبل Maxamed, maxaa shaqada caseeynimada inaad qabato kugu kalifay? ظروف Duruuf oo familka xagiisa. Goorma ku soo biirtay shaqadan? oo kalaatay looda Waa tahay maalinkii lacagta aad ka shaqaysay celcelis ahaan intee gaartaa? 7 ama 5 lacagtaas xagee geysaa? oo Hooyo aab ma nool yihiin? may oo ibsano Aabina? waa dhintay Wax dhib ah ma kala kulantaa dadka oo markaad kabaa u caseynaysid? Maxaa ka mid ah? dad lacag kala qataa Oo kaala dhuunta markaad u shaqaysid oo kale. Waa tahay waxbarasho ma dhigata? may Haddii hadda aad heshid oo kale waxbarasho firiya ma dhigan lahayd? Walaal ma kula dhishteen? ilmaha la dhistaa Adaa curad ma tahay? Waa tahay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshooyinka ku daawanaysa? Maxaad ka codsan lahayd? inay caawiyaan Waxbarashada iyo duruufahaas inay ka caawiyaan. Waa tahay magacaaga? Cabdullaahi. Abdullaahi waxbarasho ma dhigtaa? Haa. Kalaaske? Koowaad. Caseeynimada goormee ku bilowday? 3 bilood. Bilood? Haa. Aa ku jira bis. Haa. Waxbarashada ma rajaynaysaa inaad dhammaysid? Haa. Ilaa heerkee? Muddo sano. Jaamacad? Jaamacad. Hay jaamacadda markaad dhammaysid maxaa baranay? Jaamacad markii oo dhamay dugsiga gala dugsi markii oo dhamay oo weynaado fundiyana qaraba. Fundi. Maxaa dhisaysaa? Dabaq. Dabaq. Injineer aad noqonaysaa? Haa. Yah? Haa. Insha Allah waad noqonaysaa idee. Shaqadayna